soo noqod wanaagsan dhammaan reer YouTube meel kastoo dunida daafihiisa joogtaan waan idin salaamay salaan kadib maanta waxaanu ku kala qaadanaynaa warbixin ama war baynu ku kala qaadanaynaa goobtan iyada ah waxaan soo diyaarsanay runtii bahal qado oo cajaa'iba oo hilib riyaad laga sameeyay bariiskii mooskii ansalaatadii waxaa la yidhi nin walowbaa la dhahay naftaada hayso ama ha lagu hayo marka intii adi naftaada lagu hayn lahaa adi naftaada hayso halkan waxaan kusoo diyaarsanay maraqa waxaa laga sameeyey bahal la dhaho mulakhiya iyo waxa laga sameeyey baamiye runtii carabtaa cuna soomaalidu badanaa waa laga yaqaana waa laga yaabaa soomaalida carabta jooga inay yaqaaniin waynu kala baadnay wax badan baynu kala maqnayn muddooyin fara badan baynu kala maqnayn dee waynu sheekeysanaynaa waynu sheekeysanaynaa soo wada dhadhawaada shaahiina soo qaata haddii aad galab ku jirtaan haddaad aroor ku jirtaan haddaad habeen ku jirtaan shaahiina soo qaata qadadiina soo qaata quraacdiina soo qaata waxaad rabtiin soo qaata waynu wada sheekeysanaynaa wax badan baynu falanqeynaynaa waayadan waxaynu isweydiinaynaa meelahaynu ku kala maqnayn dee waxyaabo badan ma garata marka bal dee qof hadlayo cunto cunayana dee waaba isku soo noqod wanaagsan dhammaan meel kastoo dunida daafiisa joogtaan waa walaashiin oo idan la isku soo noqon wanaagsan dhammaanteen still waan sheekaysan wallahi maanta waxaan rabay inaan ku soo qaato wax yar oon u bogi waayay oo gabdhaha Soomaaliyeed maalmahan ay ku soo bateen anu inay caanbax ka tahay iyo inay nafis ka tahay iyo inay ceebayn ka tahay iyo waxay ka tahay anigu kulli ma fahmin laakiin dee nin walba waxa la yidhi garaadkiisa ayuu socdaa laakiin waxaan dhihi lahaa gabdhow sidan isku dhaama qof aad isguursateen guri isla gasheen sariir wada seexateen go wada huwateen inaad maanta ceebtiisii social media intaad lasoo fadhiisata tiraahdo saan buu ahaa kan buu ahaa waa laga qurux badan yahay qofkan haddaad u bogi weydo iskaga tag cidi kuguma dul xidhxidhin ilaahay wuxuu dhulka u badiyey in lagu kala maaragtay labadiis fahmi weyda ay kala maraan laakiin ina maanta la isceebaysto la isxagxagto waa laga qurux badan yahay bal gabadhan ila dhageysta insha Allah maanta marka waxa la qarsinayay yani ina public ka sheegtay diyaarada radwalka nafis niida wax ku jira soo diyaasada dadka kula qaybsadaane amaana samaana kala sheegaane nafis marka waxa rabaa in aad horta marka hore magacaaga ku weydiiyo magacaaga غسل جلاتها لا غسل جلاتها اوكي waxa qarsanaysid maanta arjina ugu nafistid waa maxay dhanka xaasnimo yani wax guur ku saabsan miyaa okay nin baa isqabnay qisada waxa rabaa inaad dib noogu soo bilaawdid diyaar waa maxaa tiri nina isqabnay nina isaarosnay waa sidoo leeyahay familku kuma dareen gabadha eedadii ay keentay dhabarkiisa oo siisay markaas ay tii kan baro waa ibobsiinaysaa marka waxa rabaa sheekada saa u fahano wax ma way moogtaa sax dadkana markii sheekada step by step loogu sheego ay fahmayaan adiga waxa tiri waa lagu qabaa miyaa mise guura soo marta sheekada يعني جورا صومرت معك شيء كذا بس جورا أكو جرتي هذا جورا أنكو جرا لغة لقستم لا لغة لقستنا مي bal hadayba ka xishoonayso inay afkii soo mariso wixii afkii ku ballaariso maxay ku keentay inay shir inta la soo fadhiisato yaa social media inta la soo fadhiisatay tiraahdo waxaas wax maldahaad la yiraahdo ma jirto marba waa soo bareeday shaaca ka qaado si fiican u sheeg hadii kale wixii waan dul marmaraya wiilkii uu fahmi laayahay dadkii daawanay way fahmi laayihiin waxaas waa xaweeye xishmad darro oo ku soo badatay gabdhaha Soomaaliyeed subxaan Allah waa lu qabaday aad waa li qamari karo ma li qamari karo laaks waa lu guursaday waa li guursaday maruu furay
ay wax ma furmo waa uu qabaa de okay dhiba kaas ka haysta laymana qabin bay tiri dhibiga haysta laymana qabo laymana furin dawreeri waaba la qabaa layma furin laymana qabo maxay ka dhigan tahay subxaan allah waxay inta keen isiga waa okay gurki ku horeeyay maya kii saddexaad waa saddex guri soo aad iyo aad meeqa sana jira tiri 20 sano saddex guri murusa aad iyo aad gurki saddexaad dhiba ka haysta ilmo ma dhashay mise ilmo way joogaan ay dhaafeen soo kan hadda ku qabaa dhashay mise may kan dhaxda ku jira u dhalay okay kii labaad adoo labaad guursatay waa lagu laatay afartan muruya 7 sano ka hor 26 adoo yiriisa guursatay 13 jir anoo yara guursaday okay kan saddexaad 13 sano ku guursaday kuwa hore maadaama caraf dhamaado subxaan allah ilmo ka jirin imale kan saddexaad aan soo galno marka sheekada markuu horeba inay sheeko beena tahay waxaad ku garanaysaa 13 jir anigoo aan guursaday 13 sano gabadha jirtay maanta guursanaysa guri lagu aaminaya intii jirtaa alle 15 ha waaba markay ugu yarta laakiin 13 ilma jira waaba ilmaba muxuu guur ka yaqaanaaba waxa laga yaabaa inaybana qaangaadhin xataa kastaxaad dadku siibiyaan ay dadii ay keentay nabar ay keentay ninkii soo siisay soo wacay aba gorobe haa gorobe nin number soo siis idii ma idii labaad waa koraad number kale soo sii haa number kale soo siisay qoftan gorobe galacmo ku qabso hadii ma fiican haleeyo masoo meesha soo fadhiisanayeen markaas shalaayaan ka taagan tahay keeno isig okay so number kale soo siiyay number kale soo siiyay waa sheekaysanay markaa sheekaysanay soo habeen soo waca video call markaas hadee video call ka arkane waxa waa qof heer baadiyo degan yahay asaga meesha tagnaa jiray baadiyo soo video call soo waca uma jeedi qofku waa bilaadan xasraha qalb jibinne waa ku arko iska dheh markaas u sheekaysanay markaas ka bacdi waana kursaar waay waa kasoo fikiraan dhah waa kasoo fikiray ka bacdi maxaan hadii harwa hal mara video iska aragtay ma saddex maalin video ka iska aragnay ninkan hore ii yaqaan ma waana yarantii ii yaqaan asoo ku yaqaan nin waayo way dhali karawe okay goortee dhacaysa sheekadaas yaa goorkee dhacaysa yani sanadka waxaa looga gudbaa 34 bishii koowaad qisadii 60 jir bishii koowaad 3 bilood ka hor le waayo marka number aan soo siiyey asaa number siiyey sorry soo hadlay uu ku shaqaansaday video call kala hadlay saddex isbuuc sheekaysaneen video call micnihiis muxuu ahaa inaad aragtid soo maahan inaan arko iyo isaan arko markaas guriga waa keeni karay waxaas dhahaa duqaan guriga u wadaawo so video mar waxay leedahay video call baan iska aragnay mar waxay leedahay guriga waan keeni karay maxaa duqan gurigan ka keenay sheekada qolka hore markaad been sheegaysid waa inaad been run u eg sheegtid oo sheekadu isqabanayso mar waxay leedahay video callka ha waa ku jeedaa baan leeyahay ma uu garanayo ma fahmayo bay leedahay subxaanallah duqaniyo waa arkay waxaas dhahay guriga haddii keenta dadka kula yaawaya iska daa saana iskaa waramay calafku waa cajiib isma dhihin meesha qolka washa gelay isma dhihin calafka ay geemahin subbal asamu kulaada maalinta wali kulaada kula inaa gursaan waa ku casha adoo yariisa ku aqaano taagaya waa ku casha soo garana adoo yariisa ku garanaya qaraabadaada qaraabadan meel qaraabo labadan hane waa ku rabaa waan ku rabaa maxamay iskaanaan dhacaadi waaye waa taasaa kadib waslan cabaaras la sheekaysanay wallahi waa sheeko yaab leh oo iga yaabis kursaara waa yiri waan kasoo fikiraan dhahay ka bacdi waa yiri waan kasoo fikira diyaara waxay waa kasoo fikirtay macnaha waa kasoo fikiray gabar walaashiyaa la tustay iska arasa tiri caadi waaye okay sidee qof aad u bogin haddawna is aragteen aanad ka helin sideed iska aroos baa la yidhi haye goormo guurku saa u micna beelay
qofka biniaadanka waa inaad baratid guur ciyaar maaha waa inaad baratid waa inaad la sheekeysatid waa inaad adiga niyad ahaan iyo qalbi ahaanba waa inaad ku qanacsan tahay waa inaad dad badan kala tashatid oo faamilkaaga iyo faamilkiisaba waa in waxyaabo badanba guur kuu baahan yahay iska guursa maaha moogta marka haddana waabad guursato wayba dhacdayba siduu dooniba ha ku yimaado maxaa keenay inaa ceeb laysla dawareego saan buu ahaa kan buu ahaa keer buu ahaa wallaahi alcadiim waad yaabaysaa dadkan ummadan ilaahuna astur yaa rab mala kulanta markaas may marka meelka dhacdaysa isla kulno يعني سي لايف ام كلمين maya feel life lama kulmin aan meelka kaas videogaas oo soo galay sootii hadda lahayd guriga haddaan keeno waa layla yaabay baan lahaa soo qofay aragtay un ma haddana waxay leedahay weligeen bas ma arkin maalintaan aqalgalle maalintaas guursanay lees aragna marka imahayna waa guriga marka dadka imaadeen meelka dhacay waa aragt meelkaa dhacay marka meelka dhacay kabacdi alana aaday wasoo tiru keystay alii gurigeeyey marka alii gurigeeyey intee joogtay markaas waxaa joogay muqdisho xamar dhexdeeda mise meelaha wuu yaabanya isaga laftiisa bal ii kaadii buu leeyahay sheekada bal gurigeynta ay dambaysa maxaa gurigeyntii ka horreeyay kaarana joogay gurigii imaaday waa la mahariyey elana soo saaratay guura dhacay kadib gurigaa tagnay kabacdi waxaa dhaqanka dhaci lahaa dhacay dhaqanka dumarka dhici lahaa dhacay mayse guri dala dhaqankii dumarka dhici lahaabaa dhacay bal adigu meeshaas meel u qaad dhaqankii dumar ka dhici lahaabaa dhacay muxuu yahay dumarka ka dhici lahaa balan dhegeysano tago waxaan soo beewa waa iska ogtahay kabacdi anigoo iska joogo habeenkii waadid waa iska joogay habeenka labaad markaas islaan habarirtee sheekeysanayna jibiyaa kabarnay tiri waxaan dhahay dhiigkan wax baraaxa ma garanaayo waxa dhaqan ma garanayana ayadii u sheegay adin qof guri soo maraatay wax aad iyo aad qof wax fahansan waxay tiri maxaa aragtay marka ayada sirteedii wax kasta u sheegaa saaxiibadeeda habeenaysa joogtiin maxaa adifadeedka maya marka habeenka labaad waa ويابني هلا هبين بابا الله يسقبا محل شيء marka hore waxay tiri habeenkii ugu horreeyay haddana waxay leedahay waa habeenkii labaad yani waradaad beel tegaysiin xataa ood rabtiin inaad wax beena soo sheegtaan atleast wax dadka ka daadegi kara oo make sense ah oo dadka ka dhaadhici kara la imaada maalin dhaweyt waxaan arkayay gabadha haysa aabahay baa maxay ahayd ilmo kale laho aniga ima rabo ima arki karo waxaasoo dhan ma wuxuu idinka yahay maxay ahayday kusoo caanbax haddaad caanbax u baahantahay social media furo adiga la imo fikradaada ku meel mar hadday dadka ka gadantay iyo haddii kaleba laakiin inaad meel shiran la timaadid been ka rakibtid waalidiinta been ka rakibtid ninaas gursateen oo isqabtiin subxaan allah okay so nin ma ahayn nin ma ahayn xagga wadaa so yani waqti qaadatay sax waqtiga qaadanay habeenkii labaad waa dacwoonaysa maxaa qadmay maya ma dacwooninay habeenka labaad waa fiirsan sida leewaa markaas waxaan dhahay awarta sheekaysanay waxaan ninka saan ebarkiisa leeyahay si fiican isiima waxaan dhahay laba habeenaa barobaya waxay igu soo gudbanaa kuu sheegada ayada ahayd si fiican isiima ebarkiisa kula maxaan dhahay dhinac ma garanaya dhahay dhinac ebra zero markaas ayada waxaan dhahay asaga xataa way ka daadegi lahaada uu fahmi laaya maxay tahay zero maxay tahay eberkiisaan ka wadaa wax badan micno badan ayana macna xagguu jiifa intaa jiiftaa macna damac ma jiro damac waa jiraa adi marka 4 habeen isla joognay markaas waxaan dhahay ayada u sheegay jir waa ninkaas eberkiis subxaan allah فهنا أنت دعوني كهلا ربع إنا واحد وجاهد هذه قفك ودعوني زي مقتة ليكو كأرت الموجي يعني ده يعني وح كود ده واسك سحن جت أسمع سحن جري مقصود دم عجري ما هي مركز سحن جرنا واسود دم عجري
أنا اسمه دهين قفكان وعسين هلا وذا هبين أصدهاي مركز كبعد هبين كزدحات سلمان حارك وجسمه بدل نوع سبحان الله مركز هذا محكا خلطان مركز ويري محمد جرام مركز بحي لو يسوي تجلود وصولستي أنا عادي واعي حمران جوجنا بيتر هذا أنا الله بيشيجس كارما لوجو ما يد أنت لو عروس هذه أنا بعرس أنا ننكي حتى وريرسين marka liigii oo ayada waxay haan asaasa jirto ninka way warkiisay rasmi ahaa ay warkiis ku dhaamsa aad ilan naagti ninka ka warmaysa adigu waa ana u sheegay ninka haan way warkiisa yeela okay marka sayid iska dul qaad caadi waaye warkiis marka ina fahmaa marka ninka haan hay suuqa soo dami jiray oo soo dami jiray oo ku imaan jiray haddii uu geed tooshi dhan ma daarno دلق دم محو جزء مستجير الله عيب الله أكبر waxay tiri wuxuu yiri muxuu ku soo aadaa muska seexdo waa runta walaalay waxa weeye ma taqaanaay xishmadii iyo xayadii Soomaali horta way ka dhamaatay dhaqamada noocana waxa lagu aqoon jiray dadka gaalada ah inay dad la hadlaan waa dad horta dhibaato qabtid horta dhibaatadu waa ka hadli kartaa laakiin wax walba wuxuu u baahan yahay privacy wuxuu maadaragtay in maanta la soo dhigo oo social media ama shaaric waa laga qurux badan yahay marka maxay hayday war Soomaaliya sidan hal isku dhaamo waxaani ceeb weeye inaad ka sheekaysid qof bila aadan ah haddaad fahmi weydo qofka iskaga tag maxaa sheekadiisa badiisa ku geli haddaad gabadhan fahmi weydo iskaga tag maxaa sheekadeeda ku geliya inaad public la soo fadhiisato wallahi Soomaalidu way wareereen colaadaba waxaa nooga daran dhibaatada kale naga haysato social media haddiiba colaadii laga soo kaban lahaa bal social media yaa ka soo kabanaya wallahi dhibaato adduunyo weeye war dhammaantiin waan idin wada salaamay marka dhammaantiin sidan isku dhaama qaar yiraahda maxay hayday oo naagtii gabadhii wiil ka hadashaba tiraa qaar yiraahda nin bay ka daba cararaysaa adoo ninka daba cararin adoo nin isku bahdilin adigoo qiimahaaga iyo sharaftaada meel kaga dhicin adoo qiimahaaga garanaya haddana waynaad waxyaabaha qaar xeerisid wiilal badan oo Soomaaliyeed oo gabdhahooda si sharaf leh ku qaba oo gabdhumarkooda dhaqda oo ilmahooda korsada oo ilmahooda ilaashta oo ilmahooda sidii maad aragtay ay aabanimo u ixtiraamaa jira marka kii haddaynu mid walba nidhaahno sidan buu yahay kii wanaagsanaa baynu xaqiraynaa marka haddee baruur wada qurmisaa la yiri gabdhow hala iskala reebo oo waxaan maad aragtay faanka la moodaya ee dhaqankii godka ku riday ee wiilashii Soomaaliyeed sharaftoodii meel looga dhacayo hala iska ilaaliyo waxaani waa wax maad aragtay laynala rabo waa wax qurbaha intaynu nimidna laleeyahay maxay miyuu ku dilaa miyuu ku biiliyaa miyuu ku siiyaa because waa kala fogeyn laydin kala fogeynaya adig iyo ninkii ilmaha kula korsan lahaa kana isku diintiin kana isku dhaqantiin kana isku midabtiin kan hadduu xun yahay iyo haddii kalaba kanuu ilaahay ku baday marka kor isku soo qaada gabdhow kor isku soo qaada gabdhaha kale ajnabigu kursadena dee calaf baa u geeyey kawdhe laakiin idinka intiina kale yaa gabdhahaas anagu horta maba arkinba iyagoo gabdho wiilo Soomaaliyeed caynaya laakiin intiina kale sidan isku dhaama oo maad aragtay gabadh waliba ha u noqoto gabdhaha kale road model ha u noqoto gabdhow horta videogeena intaas ku soo gabagaboobay
laakiin waxaan rabay inaan wax yar idinku darsado gabdho horta waxaa marka ugu horeysaba ceebtu qabanayso waa dumar ama qof gabadh raggii Soomaaliyeed maanta ceebaysaan marna aabaha noo ahaa marna aan anagu dhalay oo wiil noo ahaa marna adeerkeen ahaa aabaheen la dhashay marna aynu u hooyanayno iyo awlaadeena aabahooda ahaa inaynu maanta god la gallo oon mar dhahno Faarax Majabaasto wax matare kan weeye Soomaaliyeed ee haybada leh ee maad aragtay in dhaqanka leh ee gabadh walba markay guursanayaan maanta sharaf iyo ciziga ku doonta ee gabaatiga iyo dhabanka gabdhaha ka bixiya ee gabdhaha maad aragtay in ixtiraama haddii hal wiil maanta qurbihii wiilal qaarkood qurbihii maanta la isfahmi waayay ama uu ilmihii kula korsan waayay ama aad isfahmi weydaan haddana saa ay tahay waa wiilasha maanta marka qurbaha la joogo ugu qiimaha badan gabdhaha ma jiijiitaan maxkamad ma saaraan ilma kama qaataan kuma soo maxay ahayd dibindaabiyeynayaan oo kuma dhibaataynayaan waa dadka keliyeed ka badbaadaysid nimanka ajnabiga waa niman wada xorkog ilmaha kugu haysta ogolayn inay baasaboor kuu saxeexaan oo ilmahaaga wadanka kala baxdaan ogolayn adiga maxaan ku idhaahdaa kula ficiltamaya oo maanta haddaad nin guursato raba ilmahiisii inuuna gurigaa maanta ninku soo galay aanu joogin raba kugu dacwey insha Allah subscribe like comment share intaan videoga xoga ku kulmayno sidaa iyo is arag dambe oo xiiso leh videogana meel gaadhsiiya waa video aan ugu talagalay gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta adduunka joogaan inaynu inagu koros ku qaadno qabiil waliba ragooda waa ixtiraamaan wali ma aragtay gabadh carabiyada oo caynaysa nimankooda oo dhahaysa oo nimanka carabta waa sidan wali ma aragtay gabadh cadaana oo caynaysa nimankooda oo nimanka cadaanku waa sidan wali gabadh Afrikaanka kale oo ragooda caynaysa ma aragtay wali ma aragtay gabadh indha yar oo ragooda wax ka sheegaysa maxaa gabdhaha Soomaaliyeed kaliya ku koobay inay ragooda caayaan ya بالسويدية تاس dadka bila aadanka waxa wanaagsan baa lagaga daydaa laakiin idinku dadka waxaad kaga dayataan waxa xun baad kaga dayataan ma garatay waxa xun ayaad kaga dayataan anigu iska daanini qabe wiilasha aan dhalaan ixtiraama wiilasha aan dhalay ayaan ixtiraama xataa oo maanta inaan anigu waalid u ahay oo raganimada u qiraa oo inay rag yihiin aan u qiraa oon ixtiraama taasina waxaynu dhaqan u leenahay maaha wax oo maad aragtay ilbaxnimo marka telefoon baa iga soo galay in hadalkii anigoo wada idinkuma qasbin qofkan bila aadanka haddii oo dhibaato aad kala kulanto ama aad ka aragto waxaanad adigu ku faraxsanayn ilaahay wuxuu dhulkuu bilaadhiyay lagu la tago oo banaanka la kala maro laakiin in la isjiijito ama la isceebaysto ama laga sheekeeyo waxyaabaha qaarkood hebel waa biriq iyo heblaayo waa sadan iyo heblaayo waa kan iyo no ilaahayna ma jeclo aadamihiisana ma ku faraxsano midda kale waxani social media weligiisu ku jiraya miyana adiga cirib xumo ku ahayn oo nad qoomameynin xitaa beritoole miyana ilmihiisa xataa aanay daawan karayn waxyaabaha sameynaysan ka fiirsada ruuxan bil aadanka ee maanta calaf isku timaadana haddaad ixtiraam ka weydana dariiqa mar haddii kalena is ixtiraama labadiinaba is ixtiraamka labada dhinacba waa laga rabaa gabadha kaliya in la ixtiraamo maaha gabadha lafteedu waa inay ixtiraamto iyadu ninkeeda ma garatay marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay idinku daro waano wax badan ilaahay inaga bedelo sidana hadda lagu jiro waxa weeye oo wax cirib xumaynoo ah insha Allah videogeena intaasaan kusoo gabagabeynaya sidaa iyo nabadgelyo tan videoga xiga ku kulmayno subscribe like comment share insha Allah sidaa iyo nabadgelyo gabdhowna korsku soo qaado
waxaana adigunba ku yahay maad aragtay wax oo maad aragtay xumaan ah haddii dadka kale bila aadanka maanta waxaan intay fasirtaan ay dhageystaanna oo wax adiga berritoola lagaaga dhigan karo hub dad badan oo ajnabi waxay jira af Soomaaliga yaqaanaa jira oo waxa dhow laynoo